waxa maanta gabi ahaanba albaabadu u xiran yihiin meeradaha ganacsiga ee magaalada Gaalkacyo kadib markii ay meesha ka bixeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ahayd oo toddobaadyadaanba ay ku socdeen kala sooc ay ganacsatadu ku sameeyeen Cable TV ayaa u kuur galay xaaladda dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ee arrinkani uu sameeyay waxaana kamid ahaa dadka arrintaasi sida xoog galay u taabatay dadka xoogsatada ah ee ka soo shaqo tagi jiray deegaanada ka baxsan magaalada Gaalkacyo waxayna saaka waayeen waxa ay ku raacaan gawaarida maadaama laga diiday isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga ah halka ay saaka ka shaqeynaysa ama laga isticmaalayay lacagta dollarka oo kaliya wana kuwaana ayaga oo ka cabanaya arrimahaasi saaka waxaan gaari ku raacan waayay saharlan gada saharladina maaragtay kun baa shalay aan ka gatay kun waa kan jeebkay ku jira gaarigiin waa idiiday saaka waa soo lugay hadda saacadana waxaan nimid magaalada saaki waxaan ka qaadoohaa $1 baa ka qaadooha gawaarada Soomaaliya waa la diidan yahay $1 shood baan idana ka qabaa shood waxaan shood aaga qabaa hadaas ilaahay ku soo galiyay وشت أو مركز بدش الله يا عطان جاهن هاي لو كوسو عليه $1 بس عليه. أنا رحت على هستو. وكيل هو بسوي. يا جدر هو بسوي. عرولي ده بسوق الله هو بسوي. لا أكثر الصومالي أنا مريكا كليه مسافة يا مريكا نمجوه. وحن استعمال ولا عكس الصومالي. وحن أكثر يا لا أكثر الصومالي halkani waa suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa albaabadu u xiran yihiin dhammaan meheradihii ganacsiga ee suuqaasi kadib markii ganacsatadu ay diideen isticmaalka lacagaha shilin Soomaaliga ah oo kolkii hore haybsooc lagu isticmaali jiray si ku meel gaar ah balse maanta gabi ahaan baxayirmay hooyadaani waxay ka sheekaynaysaa xaaladda suuqa Gaalkacyo ee maanta kadib meel aan wax saar la garanmayo xaaladdu waa nagu cakiranta ilmihii bil waa u la'an waxa way arrin adag baa magaaladan Gaalkacyo ka jira haddaan wax laga qaban dhibkaan dad badan buu saameynaya shalay bay soo shaac baxday saakana waaba la diiday xataa hilibkii iyo qudaartii waa lagu diiday magaalada Gaalkacyo oo halbowlaha ganacsi u ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa toddobaadyadaanba ganacsigeeda wuxuu ahaa mid sixir barar xooggan uu ka jiro isla markaasna laga diiday isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga ah maadaama jahwareed uu ku yimid isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga ee laga isticmaali jiray magaalada Ali Maalim telefishinka Cable Gaalkacyo